إن مركلة ترتما ما حسنت هاي إسرائيل إن إسكو دحياعدو waxa keenay oo saaxiibkii uu ku dhawaa garabkeeda taagnaana ay u weerarayso waxa keenay in saameyn ay leedahay go'aankan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay soo saareen kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka aan halkaan idinku soo gudbin doono maalin walba haddii ay baydmo wallaahi si markii loo fiiriyo waa dhab Toronto maxaa yeelay Israa'iil horta go'doon siyaasadeed mar walba markii dambe way sii galeysay oo dawladaha caalamka ee garabkeeda taagnaa ka sii tagayay haddana waxaa noo muuqataa in dawladda Mareykanka ay ka sii baxayso garabka Israa'iil iyadoo dhowr jeer oo dawladda Mareykanka madaxweynaheeda madaxweyne Biden uu isku dayay in uu telefoonka kula hadlay uuna ku qancin waayay in wada hadal la galo xabad joojin la gaaro barnaamijkeena waxaanu ku falanqayn doonaa oo aanu ka hadli doonaa Israa'iil iyo Mareykanka oo xilligan ay ka dhex tarantay iyo waliba sidoo kale dadka reer Falastiin iyo ururka Xamaas oo soo dhaweeyay go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay barnaamijkan waxaa ila falanqaynaya oo ila jooga saaxiibkii Cabdisalaan Maxamuud Shire Cabdisalaan kusoo dhawow barnaamijka falanqaynta ee dhacdooyinka bal marka hore haddii aan ka hormarno muxuu uga dhigan yahay dadka reer Falastiin waa mahadsantahay Toronto xabad joojinta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku dhawaaqeen dadka reer Falastiin gaar ahaan reer Gaza dabcan wuxuu uga dhigan yahay wax micno weyn waxa ka istaagay duqeymaha iyo xasuuqa lagu hayay waxa ka istaagi doona dagaalada ba'an ee mar walba madaafiicda xabadaha dushooda ka dhacay an iraahdo waxay heli doonaan gargaar mar walba soo gali doona waayo ciidamada xabada istaagi doonta ciidamada goobaha muhiimka ay haystaan ka bixi doona sida isbitaalada iyo goobaha muhiimka iskuulada oo kale marka micno weyn oo ga dhigantahay Israa'iil waxaad moodaa markii go'aankani uu soo baxay in uu ku yimid khalkhal weyn Mareykanka oo ahaa saaxiibka ugu dhow ee ay Israa'iil leedahay oo dagaalkan ku taageerayayna waxa ay ku qaadeen mas'uuliyiinta kala duwan ee Israa'iil weerar aad u baan maxaa arintaasi keenay bay kula tahay oo Israa'iil keenay inay maaragtay xilligan isku dhaxyaacdo markale tartama ma hasantahay Israa'iil in isku dhaxyaacdo waxa keenay oo saaxiibkii uu ku dhawaa garabkeeda taagnaana ay u weerarayso waxa keenay in saameyn ay leedahay go'aankan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay soo saareen golaha ammaanka ee qaramada midoobay wax yar haddii aan daawadayaasha u aftiimino si ay u fahmaan waa 15 xubnood oo ka kooban yahay 15 kaas xubnood 5 waa joogto 10na waa la soo doortaa oo way isbedelaan mar walba dawladda cusub la soo doorta ama kuwa hore ku soo noqdo hadii loo codeeyo marka shanta golaha ammaanka codka diidmada qayaxan ku leh ama wax luqada qalad lagu dhaho veto power ku leh waa 5 dawladood oo kala ah Mareykanka Ruushka Ingiriiska Shiinaha iyo Faransiiska marka qaraarkan waxa u codeeyay 15 xubnood hal uu ka aamusay oo Mareykanka ah 14 kale way u codeeyeen marka Israa'iil waxa ay ku haystaan Mareykanka waa sida looga aamusay isbaaradii hore noogu taalay oo isla ogeen maxay looga gudbay ama loo jabiyay maxad codka vetoga ama diidmada qayaxan u isticmaal weyseen xitaa waxa jiray wafdi balaaran uu horkacayay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil dawladda Israa'iil iyo Yoav Gallant ninka lagu magacaabo ayaa wuxuu tagi lahaa Mareykanka Washington wuxuu si macnaha uu oga helo hub iyo rasaas intaas ka badan oo shacabka reer Falastiin gaar ahaan dadka Mareykanka Gaza iyo Rafah ku qaxay ama ku nool si loogu xasuuqo wafdigaasi waxa joojiyay oo war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu lagu joojiyay ama lagu hakiyay in wafdigaasi uu tago marka inta badi waxay ka xanaaqsan yihiin ama ay u weerarayaan saaxiibkooda ugu dhawaa Israa'iil waa arintaas ayda Israa'iil warbaahinteedu waxay qoraysaa in Mareykanka laftigiisa ay leeyihiin isaga ka soo shaqeeyay qaraarkan sababtoo uga aamusayna waa wax uu maaragtay wax ka ogaa marka maxay kula tahay iyada qudheeda eedayntaasi waa eedantii had iyo jeer mar walba Israa'iil ay dawladaha caalamka u jeediso
waa suuragal oo waa la dhihi karaa waa sax marna suuragal ma aho waxaa waaye wax maraykanka iyo ruushka ay isku raaci karaan ama ruushka uu codan karo maraykan inuu kan lagama yaabo maraykan xitaa su-aalo la weydiiyey ama falanqeeyaasha caalamiga ee arrimaha noocan oo kale takhasuskooda uu yahay ay isweydiiyeen ayaa waxaa ka mid ah maraykanka muxuu uga aamusay maraykan adduunku uu ku fashilmay adduunku uu ku cooboobay fagaarayaal badan adduunka ka tirsana lagu horceebeeyey asagana wuxuu ku fasiray Israa'iil qudheedu waxay ku riixaysaa dagaal inuu galo Maraykanku dagaal inuu galo waayo sida aan la soconno waxaa waaye badda cas wax ka tagan waan la soconnaa Iran meel bay ayadana ka biratumanaysaa Lubnaan oo xisbullaahi ah ayadana meel bay taagan tahay marka Maraykan waxa uu uga aamusay markii la weydiiyey wuxuu ku micneeyey in qaraarkani uusan ku jirin wax Xamaas cambaareynayo haddii Xamaas wax cambaareynayo uu ku jirana uu caadi ugu codeyn lahaa laakiin taasi wax marmarsiya ama noqonayso Maraykan waxaa waaye asaga iyo saaxiibka ugu dhawaa ee Israa'iil u lahaa way ka dhex talantahay waa gartay wargeyska Yadcood Axranood waxa uu qorayaa in Israa'iil ay gashay go'doon siyaasadeed xiriirkii u dhaxeeyay Maraykanka iyo Israa'iil uu maaragtay wiiqmay halkaana ay u muuqato Israa'iil xitaa hadda kadib inaysan hub iyo waxba lagu taageerin iyo dhaqaale midnaba oo xaaladdu ay tahay Maraykanku inuu dhabarka u jeediyey Israa'iil taas ma la oran karaa tallaabadani sidaas ay sheegayaan Israa'iiliyiintu waa dhab miyaa la dhihi karaa wallaahi si markii loo fiiriyo waa dhab Toronto maxaa yeelay Israa'iil horta go'doon siyaasadeed mar walba marka dambe way sii gelaysay oo dowladaha caalamka ee garabkeeda taagnaa kasii tagayay haddana waxaa noo muuqataa in dowladda Maraykanka ay kasii baxayso garabka Israa'iil iyadoo dhowr jeer oo dowladda Maraykanka madaxweyne Biden uu isku dayay in uu telefoonka kula hadlo uuna kula hadlay uuna ku qancin waayayba inuu wada hadal la galo xabad joojin la gaaro Maraykanka maalmahan wuxuu uu riixayay ama uu waday waxaa ka mid ah dowlad reer Falastiin ay leeyihiin oo aan hubaysnayn sida xataa dowladda Masar ay qabto ama kala hore ay ku dhawaaqday dowladda Falastiin ay leedahay oo aan hubaysnayn in la dhiso taasna way ka soo horjeedaan shacabka reer Falastiin iyo ururka Xamaasba marka dowladda Israa'iil waxay gashay go'doon walow warar goor dhaweed soo baxay ee dowladda Maraykanka ay sheegtay ay yihiin in ay garabka saaxiibkooda aysan ka bixin ay weli taageersan yihiin siyaasad aan qaangaar ahayn ay ku dhaqmayaan dowladda Israa'iil Joe Biden waxaa la leeyahay wuxuu kari waayay ninkan ra'iisul wasaaraha ka Israa'iil Netanyahu iyo xirtiisa marka Maraykankana taas ayaa ku qasabtay baa la leeyahay inuu go'aankan qaato iyo isagoo doorashooyin iyo waxyaabo ay ku soo fooleeyeen iyo xisbiga talada haya ee Maraykanka oo isagana ka baqaaya in loo codeyn waayo doorashada soo socota arrimahaasi ma muuqdaan oo arrimo muuqda ma yihiin jawaabtu waa oo way muuqataa madaxweyne Joe Biden madaxweynaha dowladda Maraykanka sidan hore uga dhawaajiyo dhowr jeer uu telefoon kula hadlay xogayihiisa arrimaha dibadda ee Anthony Blinken tiraka 6 jeer uu soo diray oo isbuucii hadda naga dhamaaday ee jimciha ay ugu dambeysay oo Israa'iil uu ku sugnaa wax walba loo sheegay dabcan wuu diiday Benjamin Netanyahu asan ra'iisul wasaaraha Yahuuda asana laba culays haysta oo ah culays wuxuu ka haystaa dhanka gudaha oo ah maxkamadda ayaa uu saaran yahay maxkamadda la soo taagay maxkamadaasi dabcan dagaalkan in uu ku jirana xal bay u tahay asaga xal buu moday dagaalka haduu soo gabagabay maxkamadaasi u aadi tan labaad ayadana dagaalka keligiis go'aan kama gaari karo dowladdiisa ama xukuumadda uu soo dhisay waa xukuumad wadaag ah waxaa ku jirta 2 nin oo xag jir ah oo golihiisa wasiirada oo ugu muhiimsan ka mid ah waa ninka wasaaradda maaliyadda hogaamiye wasiirka maaliyadda ah iyo ninka wasiirka amniga gudaha ah Ben Gvir ninka lagu magacaabo waa nin 2 nin oo mayal adag aan iraahdo waana 2 nin ee aaminsan in Xamaas iska daa qof reer Falastiin ah uusan jirin dowladooda meel dhis iska daay marka madaxweynaha Maraykanka xitaa wuxuu si cad goobo xafladaha ololahiisa doorashada uu ku sheegay
in xukuumaddii ugu mayaalka adkeed ama ugu dhaga adkeed ay tahay dowladdan hadda netanyahu u hogaamiye ee weligeed soo martay yahuudda. dadka reer falastiin haddii aan ka bilowno ugu horeyn ururka iska caabinta ee falastiiniyiinta xamaas iyaga qudhooda sidee uga falceliyeen ma soo dhoweeyeen go-aankan maxayse uga dhigan tahay oo laga yaabaa inay maaragtay iyaga qudhoodu ay u arkaan? toronto waa arrin mudan ayada nafskeed in si gaar loo fiiriyo ururka xamaas iyo qaabka usoo noqon doonaa. dowladaha soo dhaweeyey aad bay hadda u badan yihiin, mar walba marka dambe way sii kordhayaan. waxaa ka mid ah oo hogaaminayso dowladda South Africa oo aan ka warqabno meesha ay ka gaartay in ay reer Falastiin u heliso ilaa heer ay maxkamadda cadaaladda adduunka ay geyso kiis ka dhan ahaa dowladda Israel. marka xirtaasi waxaa ka mid ah ama dowladaha soo dhaweeyey South Africa, Turkiga, Ruushka, Shiinaha, Qatar, Iran, Spain, Malta, Mozambique, Algeria iyo dowlado badan ayaa ka mid ah oo mar walba marka dambe way sii kordhayaan. aan ku laabano xamaas miyay soo dhaweysay? xamaas way soo dhaweysay. tactic weli waxay ciyaaraysaa siyaasad ah in ay indhaha caalamka ay ku soo jeedisay Israel. waxay isla markii qaraarka loo codeeyey go-aankiisana uu soo baxay waxay ku dhawaaqday in ay soo dhaweynayso qaraarkan ayna diyaar garaynayso qaabkii ay ku fasixi lahayd maxaabiista ay gacanta ku hayso iyo sida ay u siidaan lahayd in ay diyaarin doonto. adaa mahadsan tahay dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii falanqaynta dhacdooyinka dunida oo aan halkan anigii cabdisalaan maxamuud jire si toos aan halkaydii kasoo tabinaynay. inta aan ku kulmayno barnaamijkan lamid waxayd kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. saaxiibayaal, haddii aad ku cusub tihiin barahayaga bulshada, fadlan barnaamijka noo laygareeya, noo sheergareeya, wixii aragtiyana fariinta ama qaybaha hoose noogu reeba ee janalkana subscribe noo saara. aad baa u mahadsantahay.